السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كلنتي وعن ونكسن كنا سود وهذا صاحب يال إن وركي ودم عيارها صاحب يال وحن عوا عن دردا صار الدوناه بقول كيف أنت كوحدة كبدا عقتا أرسنال كقول سدونتا إن هريالك بريمليجا أو سنة كان أود أكوه جامنيسو ما دام أغنى إن كوحي وويناي ودن بدن كود أي قراعين هل كان هذه قراعينه ay maalintii la soo dhaafay ee xad ay ka aarsadeen ayaan saaxiibyaal nisu gudbin doonaa sababtay ku qaadi kardho kooxda Arsenal iyo sabab la'aanta aysan ku qaadi karin haddii ay wax si ka noqdaan iyo boqolkiiba intee ay Arsenal qaadi kardhaa horyaalka Premier League oo ah horyaalka ugu xamaasad badan dhammaan qaaradda Yurub. Saaxiibayaal haddii aad tahay saaxiibka cusub barteenaan fadlan subscribe like share nagu dhiirigeli waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga. kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa hogaaminaysa horyaalka Premier League tan iyo bilowgii horyaalka. Arsenal waxay sanadkan ay cadaystay inay awood leedahay. Arsenal ka taqaanay 2015kii, Arsenal 2016kii, Arsenal 2017kii, Arsenal 2018kii, Arsenal 2019kii, Arsenal 2020kii, Arsenal 2021kii waxaa soo laabatay Arsenal 2022 inaba caadi ahayn. waa koox laga soo shaqeeyay Real Arteta 2 sano oo xiriir baa la sugay wuxuu keenay guuldarooyin xanuun badan, dhibaatooyin xanuun badan. Arsenal waxay sameysay maamulkooda, waxay sameysay dulqaad inaba caadi ahayn. marka sanadkaana wuxuu isku soo duduubtay ama isku keensaday ciyaaryahanno oo isku macnaha ka soo qaatay qaar Manchester City laba ciyaaryahan oo muhiim ah sida لاعب Gabriel Jesus لاعبka garabka bidix lagu magacaabo Cancelo. لاعبkan inaba caadi maaha, khadka dhexe, daafac, weerar, meel walba Arsenal ka qanciyeen wiilkan yarka oo ka soo jeeda wadanka lagu magacaabo hadda dagaalka socdo oo Ruushka la dagaalayo ayuu ka soo jeedaa لاعبkan marka Ukraine lagu magacaabo. marka لاعبkan caadi ma ahan ba Arsenal waxba ku soo kordhiyay dhexdeeda fariisiyo markuu buuga haysan Arsenal dhex u imaanaya, markay Arsenal buuga haysanna daafac buu tagaya. marka waa tactic cusub oo la yimid macalinka Arteta oo sanadkan bil walba ku guuleysanaya macalinka ugu fiican horyaalka Premier League maadaama guul badan uu geynayo. horta Arsenal koox way qaadi kartaa. Arsenal waxay ku qaadi kartaa koobka horyaalka Premier League waxay haystaan 12 ciyaaryahan oo gaajo ah oo macnaha sanadkan isleh horyaalka dhinaciisa inay dhaafin. Arsenal gool hore lagu dameysay 2004 aad beenisaan bay leeyihiin maadaama Arsenal sanadkan ay dhistay sanadii soo dhaafay oo dhan laacibiin badan oo inaba caadi ahayn ay la soo baxeen. marka 12kan laacib oo baahidu hayso oo koob la'aanta ah oo wax badan koob naadigan koob la'aanta ka soo ahaa sanadkan ay koob horyaalka Premier League ay qaadaan caadi maaha. waxaan qoraysaa riyo ma noqonayso, macnaha waa lagu yaqaanay naadiga 12 nin ciyaaryahan oo isfahmaya oo aan midkood ka dhaawacan oo haddii mid ka dhaawacmo mid kale macnaha la keeni karo sida hadda Gabriel Jesus u dhaawacmo kale oo wiilkan u soo bedel yarka waa la keeni karaa habis waa ogeedsay maalin u gashay reefanay Manchester. Arsenal soo dhashay waa ogeed Arsenal kulli wala gurguriyay kulli ciyaaryahan walba oo u dheela Manchester United kulli wala gurguriyay qaylka tahay yaata waa ogeedba kulli magacooda aabahood meesha ka yimaadeen inta jira boon dheelayaan horyaalka goona ku sabireen kulli macna interview fiican laga qaado Manchester Manchester kulli waa ogeed shaka luka show oo la buunayay oo reer fanay ay macnaha nagu waaleen waa ogeed soo galiyay hadagdagin yaata qabiilada Soomaalida qabiil ka badan magaciisu sheegay baan ku qabiilkaasaan hay xaqaasaan ka yimi saji baa lagu yiri wiilka waa ogeed shaka caadi buu u soo talaabsado irkaas uu galay waa ujeeday meesha ka dhigay waa ogeed siday Manchester kulankii hadda wax boonaya ciyaarday iyo wax macnaha la daawan karo oo koox weyn sameeyay macallama sameeyay macad waraabon waa laga haysta booniga Arsenal dheelisay booni aad u fiican baa bilowgii horta ciyaarta
lasma xaqiro ya lasma xaqiro saaxiibkay bilowga ciyaarta Manchester xoogaa boona fiican bay dhashay oo habaysan laakiin ilaa 15 daqiiqo ugu horeysay Manchester waa fiineed laakiin wixii ka dambeeyay ma arag cunuga ma dhahan cunuga dhamaadka uduga oo dhexda ah xadi ma cunugaas ya lagama shaqeyn karo cunugaas oo kale buu soo jiidayo meeshu dhigayo controlkiisa Thomas baa jooga Thomas 5 qof 6 qof 7 qof dhexdooda buu ku qaadanaya dhexdooda buu qaadan adaaba naxayaba waxa la yiraahdaa ninka xigay buu ku qaadanaya adaaba in laga dafqayaba waxaas asaga ma kala jeclaba ya Arsenal hada ma baaska buu qurux badan oo ku raaxaysanaysid oo niyadu ku dagayso oo qof walba oo Arsenal taageera oo niyadu u dagayso bay dheeraan maanta dhawaato laakiin wirrif raadinaya oo Rashford kala fiirsanaya Rashford baa la fiirsanaya maahan marka Arsenal waxaan leeyahay boqolkiiba 85 uralka qaadi ka dhaa meel ay ka dhisna fiiri oo degaad Thomas ya meesha halka waxa jooga Gabriel baa jooga xaafka hore waxa jooga Saka iyo jooga Militarian waa jooga wax ka maqan male ya sanadka Saka waa Saka khabiir Saka khabiir banku Saka halka buu soo dhigayo ma goolka xunka goolkii koobaad soo caawinay jeed wax laga qaban karo male wax laga qaban karo Arsenal male ma anu hadal baa ku daaliya Arsenal wax hor istaagi kara sanadkan ma jiro Arsenal top 4 afarta ugu sareyso Arsenal ma rabto ya hadaa ma Arsenal 4 bay gaadaysaa 6 bay ku jidaa 5 ku dhacda ma jiro hadar 1 bay ku jidaa 1 ku jidaa waa kooxda qaaradda Yurub ugu boona qurux badan ugu raj had fiiri isbuucii hore waxay qarato taam qaraado oo joogto gurigooda kooxdana Manchester United bay qaraado ma kooxdaas baan u qalmin inay koobka horyaalka qaado oo imaarad ay geyso miyaysan u qalmin oo qalanta walaalkii xaqirada ma fiicna wogod kurbada kulan Manchester United iyo Tottenham waa soo galeen hatta hadii Manchester leeyahay gurigooda joogeen Everton lagu dhaliyo kulankii Tottenham sidoo la ogo laba iyo baa lagu dhufto boon waxa la dhalay loo xarakeeyay inaan caadi ahayna oo wax qof hor istaag karan is jirin boon qurux badan intii boon qurux badan lagu sameeyo badan laga guuleysanaya Arsenal ya حق wax loo dhinta way marka waxaan kale oo eeyaa saaxiib labada kooxood oo sanadkan ay ka dhacsan tahay kuwaas waxa laga hadli karaa waa Chelsea iyo Liverpool waxaan aaminsanahay inay ka soo noqdaan afarta ugu sareyso horyaalka Premier League ama tab 4ka waa 20 kama soo muuqanayaan inay qadar dhacday shay qadar dhicina qadar meesha waa laakiin 100% kama soo muuqan karaan 20 baan qoraya kaalin sagaalaad ee kaalin tobanaad Fulham iyo Brighton iyo saaxiib yaa lamad galiyo saaxiib waa waqtigiin channelkan wuxuu wax shaqeynaya wax badan mu shaqeynaya 3 sano ilaa 2 kun maraya naga soo qarbaxa oo waxaan u raacdaa wadada 10ka k ama 10 kun oo raaca share ta like tana subscribe kana saaxiib nagu dhiiri gali oo ku maasan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga